السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxayna sii socon doonaa taxanaheennii murtiye madadaalo sheekadeenna maantana ciwaankeedu waxa weeyaan anuu xaafadda waan ku cusubahay. beri hore ayaa waxaa dhacday laba nin oo aad saaxiibo u ahaa ayaa waxay ku noolaayeen magaalo. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxay tageen magaalo kale oo markaa iyaga ay ugu horreysay amaba ku cusbayd. labadan nin ee saaxiibo ahaa waxay aad ugu wanlaayeen ama ay u cuni jireen baalka loo yaqaano qaadka oo aad bay u qayri jireen. markii ay soo galeen magaaladii cusbayd ayaa waxay qaateen jaad aad iyo aad u fara badan oo waxay la fadhiisteen meel kaag dhow guriga ay soo degeen ee cusub. markii ay aad u mirqaameen ee ay la gaadhay goor dambe ayaa ay ka kaakaceen meeshii ay ku qayilayeen. kadib mid ka mid ah labada nin ayaa waxa uu eegay cirka waxaanu weydiiyey saaxiibkiisii kale, niyo waxani ma qorraxdiiba mise waa dayaxii? kii kale ee saaxiibkii ahaa ayaa ugu jawaabay, niyow anigu xaafadda waan ku cusubahay. haddaba daawadayaal, ujeeddada iyo ogotusmeedka sheekadu waxa uu ina barayaa in qofku marka uu mirqaansan yahay ama uu qayilsan yahay aanay mararka qaarkood maskaxdiisu caadi ahayn. ujeeddada qaadka dadka loogu diidaana ay tahay inuu maanka qofka dooriyo. sidaa la ajligeed waxaan farayaa dhalinta Soomaaliyeed ama dhalinta Islaamka inay ka fogaadaan balwadaha xunxun.